Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta sharafta leh, soo dhawaada dhammaantiinba ku soo dhawaada madashan aan ugu magac darnay hoyga horumarka qaybteeda aan ku leenahay YouTube. Magacii waa Shaakir Akhyaar, waxaan ahay samafale jecel bulshada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah. Marka koowaad waxaa mahad iskale Allihii qadaray mar kale inaan meeshaan ku kulanno. Marka labaad waxaan rabaa adiga inaan ku mahad celiyo iyo dhammaan akhyaarta kaleeto aan madashaan ku dhuftay muuqaalkeenaana soo booqday, muuqaaladii horeetana ku dhuftay oo dadka sii gaarsiiyey. aad iyo aad u mahadsantihiin. kanaalka kobciisa iyo wuxuu ku dhisan yahaan waa idinka mahadsanidiin. marka salaan iyo mahad celin kadib waxaa waaye mowduuc loo wada baahan yahay maanta idiin wadaa. mowduuc qof kasta oo naga mid ah uu u baahan yahay, aysan la-aantiisna macquul ahaan lahayn maanta inaan aniga meeshaan soo fariisto oo aan idinla wadaago. marka mowduucaas waa maxay? dadka qaarkood isweydiinayaan. waa laga maarmin oo meeshaan uu leeyahay Shaakir la-aantiis meeshaan iskuma arki lahayn. dadka qaarkood waxay isleeyihiin internetka oo nooma soo gudbin kari lahayn internet la-aan. qaar kale waxay leeyihiin waa telefoonka dhalinyaraha u badnaadaan. kuwa kaleetana waxay leeyihiin war labadaba ma jiri lahayn korontada haddiise jiri lahayn. waxaa waaye korontada waxa aan laga maarmin mowduucuu noo wado. marka mowduuca waxaa laga yaabaa kulligiinba bannaanka inaad ka raadinaysiin. akhyaarta mowduuca qisheesa idiin jeedaa marka inaad bannaan ka raadinaysiin laga yaabo, laakiinse mowduucan waxaa waaye gudaheenu ku jira. waxba bannaanka ha ka raadin. labadiina dhagood dhexdooda ku jira oo maskaxdiina ah, labadiina garbood dhexdooda ku jira oo qalbiga ah ama wadnaha ah. mowduuca raadinayn waxaa waaye kalsoonidii raadinaynaa maanta oo aan ka hadli doono hadduu ilaahay idmo. kalsoonida laakiinse waxaa waaye midda aan ka hadlayna. kalsoonida laba nooc u kala baxdaa. nooc waxaa waaye kalsooni ah adiga dadka ku qabtid, oo waxaa waaye waxaa laleeyahay kalsooni cabdikaafi oo kaleeto waa ku kalsoonahay inuu reerkiisa dhaqanayo, uu ganacsigiisa kala dabarayo. ama kafeeyo ama kaafiya gabadhii la dhahayo waa ku kalsoonahay inay jaamacadeeda kasoo baxayso. maasha allah, gabadha way isku bobogeysaa. waxay leedahay markaasayba kabaha sii gashanaysaa. waalidiinta ayaga ku kalsoon yihiin hadday aragto. marka kalsooni waxaa waa midda adiga dadka ku qabtid waa mid, laakiin midaan rabno oo muhiimka ah maanta inaan ka hadalna loo baahan yahay waxaa waaye kalsoonida adiga isku qabtid. waa kalsoonida adiga aa naftaada ku qabtid. kalsoonida adiga aa naftaada ku qabtid oo adiga isku qabtid kana muhiimsan midda aad dadka kaleeto ku qabtid. maxaa yeele taas markastaba isbedeli kartaa. midda adiga kalsoonida aad isku qabtid laakiinse maalinta ka dambeysa haddaa ka shaqaysid oo sii fiicnaanisid si fiican isku bedeli kartaa. marka waa qodob koowaad maantay, laakiinse toos waxaa u gelaynaa qalabka iyo sharaxaad. macnaha intaasay noogu ekaanaysaa. toosaa qalabka idinkugu dhiibaa maanta hadduu ilaahay idmo. 6 qodobaa idiin soo qoray. 6da qodobna waxaa ku keenay 14 bisha 9aad 2021 ama 2020 sida qof walba u yaqaano. waxaa gabar walaalahan Instagramka isku barana ka mid ah oo igala xiriirto meeshaas iskala soconno. gabadhaasa waxay soo weydiisay walaalkay su-aal maku weydiin karaa? hay dhahda haya walaashay waa i weydiin kartaa hadday macquul tahay oo aan awoodo waa kaaga jawaabaa. haddaanan awoodin ha iiga xumaanin aan ka jawaabi waayo. dhib ma lahanay dhahda mahadsanid. waxaa waa su-aasha raba inaan ku weydiiyo. kalsooni la-aanta maxaa lagu sameeyaa iyo cabsida? maasha allah, horta hore waa gabar aada u caqli badan. kalsooni la-aanta ama kalsooni darrada, kalsooni yaraanta iyo cabsida inay wax iska galeen ee fahantay gabadhaas. marka ilaahay ha u waxeeyo gabadhii. marka aniga waxaa u jawaabay horta horeeta 2 cod oo yaryara ugu jawaabay. kadibna waxaa ir walaashay wixii aan soo arooriyey meeshaan kugula wadaaga. marka ilaa 7 qodob oo ayada la wadaagaa jiro. adinka 6 qodob idinkaga dhigaa maadaama hal qodob 2 qodob iskugu geeyey maadaama isku ag dhawaayeen. qodobka koowaad ku bilaabanayna marka hadduu ilaahay idmo. qodobka koowaad waxaa waaye waxaa isku sheegtaa inaad awoodo inaad samayn karto waxaan. maalin kasta waxaad isku sheegaysaa inaad awoodo, inaad u qalanto, inaad samayn kartaa isku sheegaysaa. muhiimadda maskaxda iyo niyadda ee leedahay noo sheegaa qodobkan koowaad. oo mowduuceena koowaad waxaa kusoo marna niyadda inay koow ka tahay waxyaabaha loo baahan yahay qofka isbedel inuu sameeyo hadduu rabo. niyadda inay koow ka tahay oo niyad la-aan aysan waxba kala soconaynin. mowduuceena labaad oo ahaa ma arkino mindset ama hab fikirkaaga asagan sidoo kaleeto maskaxdu ku saabsanaa. marka maskaxda iyo niyadda kama marnaan doona marnaba. ma ujeedaa isbedel haddaa rabtid inaad samaysid maskaxda kama marnaan doonto. maskaxda ku celcelinteeda iyo muhiimadday leedahana anigana idinkama joojin doono biidnillaah ilaa aad ka fahantiin ama maskaxdiina ay ka dhaadhacdo in ay maskaxda muhiim tahay. la-aanteedna aan wax la bedelin karin. markay maskaxda
go-aan gaartay ee wax kasoo bedelmaan ee waxay u gudbisaa qalbiga u gudbisaa. Qalbiga markuu jeclaado isbedelkii uu la fiicnaado markaasaa gacantaada ugsii gudubtaa ma arkino wax qabada usii gudubtaa. Marka koowaad waxaa isbedelka intuu ka dhashaa oo maskaxda ah, maskaxdii waxay u gudbinaysaa qalbigii oo jeclaanayo, wadnihii oo jeclaanayo ah wixii oo rabitaankiisa badanayo. Rabitaankii markay maskaxda ee go-aansato uu rabitaankii qalbigan uu ku raaco uu jeclaado kadib wixii isku bedelayaan ficilay isku bedelayaan hadduu ilaahay idmo. Marka laakiinse maalintaa ficilka sameynaysid mar hore ka hor uu isbedelkan maskaxda ka bilaabo adi ma ogid laga yaabo, laakiinse maskaxda midda hurudo waxaa waaye go-aankan maalinta ka dambeyso muuqaaladan oo kaleeto ay fiirsanaysa inay yihiin laga yaabo ama kuwo kaleeto maalinta ka dambeyso hoostaasaa go-aan ka gaaraysay oo isbedelkaas hoos yaruu kaaga socday ilaa ay maalinta dambeeta wixii dhac hal mar maskaxda intay ka imaadaan qalbiga gaaraan gacantii ficil ahaan uu sii bedesho. Marka muhiimadda maskaxda ilaa iyo 3 qodob oo meeshan ka mid ah waa uga hadli doonaa hadduu ilaahay idmo in la fahmo waaye. Waxa koowaadna waxaa waa qofka inuu qalin iyo warqad intuu soo qaato uu dhaho waxaa waaye aniga waa awoodaa inaan sameeyo, aniga waa awoodaa inaan qaban karo, aniga waa awoodaa. Warqad yar inaa isku qortid, warqadaas yaraa isku qoraysaa subax kasta ama maalin kasta waa akhrisanaysaa, habeenkina ku seexaa daarad subaxdina kusoo toos adigoo niyadaada ka shaqeynaa. Intaa macnaha comment xun akhrin lahayd ama qof xun hadalkiisa dhegeysan lahayd oo niyadda kaa jebinayo, maxaa kuu diida waxyaabaha niyadda kuu dhisaya inaa adiga qoratid oo aa niyadda ku dhisid. Ilaa iyo 10 qodob inay badan yihiin laga yaabaa. 5 qodob kasoo dhigo 5 waxyaabood, 5 ammaan oo ku fiican tahay, waxyaabaha ku fiican tahay inta tirisid iyo dadka waxyaabahay ku leeyihiin wuu ku fiican yahay aad tirisid qoratid inta kaleetana macnaha ku darsid oo dhahad maasha Allah waa awoodaa waa samayn karaa maskaxdaada sidii u programsid uga dhaadhicisid. Marka midda koowaad waa qodobkaas inaad awoodid oo u qalantid oo aad samayn karto inaad maskaxdaada ka dhaadhicisid. Meel yar ku qoro ama maalin kasta dheh insha Allah taas ku celcelinteeda badi. Midda labaad waxaa waaye samee wax yar oo kaa cabsiyo maalin kasta, wax yar oo kaa cabsiyo. Tusaale meeshan waxaa idinkugu soo qaadanaya salaantoo kaleeta usoo qaadanaa gabadhina sidaas inaa uu sheega umaleynaa. Marka salaantoo kaleeta tusaale idinkugu soo qaadanaa. Salaanta waxaa waaye qofka salaanta sunnana way tahay, salaanta fidiyaa la yiri, salaanta fidiya qof aad taqaanid iyo qof aad aqooninba. Salaanta wax weyn maahan, wax yar waaye. Qof aad salaamaysa aadan aqoonin, qofka ma taqaanin inuu salaanta kaa qaadayo inuusan kaa qaadin, waa cabsoonaynaa maadaama kalsoonida hadday kugu yarta waxaa ka cabsoonaysaa ama waxaa is leedahay inaa ka xishootidaa laga yaabaa. Xishoodkii oo kii ahay khajilaada ahay cabsida ku dhehneed. Marka waxaa laga yaabaa marka salaantaas yarta ajirna waa ka helaysaa, kalsoonidaadina waa ku dhisaysaa. Wax weyn maahan salaantii assalaamu calaykum aan ku leedahay, qofka ha kaa qaado ama iska kaa qaadin, adiga training kuu socdo. Maalmaha koowaad in lagugu daadsho wayba kuu fiican tahaba, laakiinse haddaa sii wadid maalinta ka dambeysa salaan yar assalaamu calaykum aa leedahay, ajirkaaga adiga waa shaqaysatay, waajibkaaga waa gudatay, kalsoonidaadina koraa u qaaday. Arrin yaraa waxaa igu dhacday anigoo mar Sweden booqday wiilaa qaraabanahay. Marka waxaa waaye anigoo meeshaana la qabsaday dadka iska salaamaya qof kastaba gaalada markii kaasoo horbaxaan hay waxay ku leeyihiin hallo hi waxaasaa lagu leeyahay ama is aqoon wadada markii iskaga soo baxo, khaasatan magaalooyinka aan aad ku waaweynin markay dadka yihiin ama qaar macnaha saan ku dhaha qaar ku dhoola cadeeyo adiga calaamad salaanaha korka lagaa siinaa. Marka anigoo macnaha sidii la qabsaday waxaa u tegay marka xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay Sweden oo Soomaalidan aan xiiseynayaa. Marka assalaamu calaykum aa dhahaa, qof kasta waa assalaamu calaykum aa dhahay. wiili aniga isla socono marka islaan maasha Allah aad u xijaabana naga soo horbaxday oo adeegeeda wadato. Assalaamu calaykum aan ku iri, waan iska sii soconaa macnaha islaanta ayada xooga dhinacaan soo fiirinaysa. Assalaamu calaykum aan dhahaa, waa iska sii soconayn. marka islaanta saasay ii soo fiirisay inay ila yaaban tahay inay xanaaqsan tahay kala garan waayo. marka waa iska sii soconay. wiilkaa wuxuu u yirinayo dadkan lama salaamo haddaadan aqoonin, adoo aqoonin inta salaanto waxay ku moodayaan inaa qac tahay, inaa waalintay ku moodayaan. nasiib darro marka salaantii ma arkinoo muslimiinta oona lagu yiri nooleeya salaantii macnaha fidiya oo qalbigii dad cusub aa ku baranaysaa salaantii inay maanta gaaladii nooleynaysa salaantii dad yaqaanaan iyo sidadiisa aqooninba ay ku fidinayaan. annakina macnaha ama aan ka cabsoonayno ama aan ka xishoonayno ama aan iskala weynahay ama muhiimadeediiba aan aqoonin. marka waxaa waaye arrin nasiib darro waaye. waxaa idinkula talinaa laakiinse inaa salaantaas yar ka bilaawdiin, ajirna waa idin tahay, sunnana waaye oo maasha Allah kalsoonidiinina waa ku dhisaysiin.
qodobka saddexaad waxaa waa marka qof kale tacaawi arrintaana wallahi cilmu nafsi ahaan arrin muhiim ah waayo maasha allah qof kale haddaa caawisid adiga waxaa dareemaysaa inaa wax fiican qabatay wixii fiican aa qabatay aa adiga niyadda kugu dhismaysaa aniga ahaan social media haddeer markaan waxaan bilaabaya kalsoonida ka hadlaya sanad ka hor kalsoonideeda aniga saan ma ahayn 3 sano ka horna sidaan ay maanta tahay maysan ahayn maalinta ka dambeysa laakiinse kalsoonida aan maanta ka hadlaya ani maalintii gabadh waxay igu soo jawaabtay habeenkii waa xasuustaa aadaa u farxa waxay dhahday markaa qodobada u qoray iyo wixii u sheegay kadib wax yar ka hor iyo haddeer isku mid maahiyay dhahday runtii aad iyo aadaa u mahadsantahay aniga waa ku farxay maasha allah hadhaa walaashay ilaahay ha ku barakeeyo inaan ku farxo dabcan waa u sheegay marka qof kaleeto haddaa caawiso adiga laftirkaaga kalsoonidaada kore u kacaysaa kalsoonidaadi kore u kacaysaa waxaa ku caawinaysa waxay rabaan ha ahaadaan laakiinse markaa qof kale caawisid adiga waxaa dareemaysaa maasha allah inaa qof waxtar leh aa noqotay oo dadkii kaleeto ah wax sii gaarsiisay oo wax lagaa dheefay marka qodobka saddexaad waxaa waaye qof kaleeto inaa caawisid hadduu ilaahay idin isku day arrintaas midda afraad waxaa waaye iska taxadir qofka inuu iska taxadiro inuu isqurxiyo inuu macnaha xoogaa yar isnaashnaasho habeenkii kareenkaaga yar iska mamarsatid iyo gabar idadee dhashaa waxaa ka barta ayaan maalin ayadoo dhehaysa waxaa maqlay lagaama qurux badnee yaa lagaa qubays badin arrin mahmaha cajiib ah waa maasha allah gabadhii maalintaas aniga hoosaa mahmahadii ka qabsaday sidii yaa u xifdiyey marka mahmahada waxaa waaye lagaama qurux badnee yaa lagaa qubays badin arta horete qof fool xun ma jiro ilaahay ayadiisa aan cadeen u ahoo laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim ilaahay nagu leeyahay dadka waxaa ka abuurnay abuuritaan ama habdhis ama qaabkii ugu qorxoonaay annaga indhaheenna waa waxa dadka qorxooneynayo ama fool xumeynayo laakiinse qofkii maasha allah ilaahay jirkaan mashiin ah caadi ahayn waayo qof ibni aadan ahoo soo saari karan ma jiro wejigan yar iyo waxaan ma arkin oo dadka indhaheenna waa waxa foolxumada dadka dhigaya ama kuu qorxooneynayo marka inuu qofka xoogaa yar uu qubeyskiisa iska waxeeyo oo kareenkiisa yar iska marsado wiil hadduu yahay barafuun yar iska waxeysto gabdhaha mashaa'ikhda inay weydiiyaan waa barafuunka intay la ekaan karaan marka xoogaa yariis inaa niyadiyaa kuu dhismayso macnaha haddii waxaa urkaaga oo ma arkin oo qofka ku ag fadhiyo uu ka dareemayso inuu xoogaa geeskaaga sikanayo fuley xantiis ma moogaa la dhahay adiga laftirkaaga waa dareemaysaa inuu qofkan hayay xoogaa urkaaga uu dhibsanayo marka urkaaga yaa la dhibsanin isqurxidana macnaha lagama wado 4 dhalo barafuun intuu isku shubtid wadooyinka isku walwalaaq falaqdaadana laga fariisan waayo macnaha gabar haddaa tahay lagama wado wiil haddaa tahana kibirkaaga iyo ma arkin oo isqaadqaadkaaga wadooyinka saas uu gaardi oo nin balaayo ka dhacda iska dhig lagama wado ilaahay ma jeclo dadka kibirka badan aayaddii haddeer ma xasuusto macnaha aayaddii ahayd in allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur qof kasta oo kibir badan dadkan ma arkin ilaahay marka wuxuu ku leeyahay suuratu luqmaan ku jirtay war kibirka iyo isqaadqaadka iyo gaardintan adduunyada ku dul gaardinaysid jooji dhulka ma kala jeexi kartid ma arkino buurahan dhirir kuma gaaraysid marka kibirka jooji kibir oo dhanna ilaahay u sugnaaday marka kibir iyo isla weynweyni iyo ama gabar ahaa ama wiil ahaa isqaadqaad iyo walwalaaq iyo ma arkino isjijibin haddee kaa noqoto labiso laguma diidano maasha allah isqurxi laguma diidano laakiinse ninka balaayadii intuu isku soo xirxiray iyo dharka iyo maxaa dhihi jiray iyo gabdhaha oo sidaas oo kaleeta ama baabuurta ka siinayaan macnaha ma ahan inay dadka kaleet ka kalsooni badan yihiin taas cagsigeeda waaye oo waxaa waaye cilmu nafsiga waxay yidhahdeen waa kalsooni yaraan waaye oo macnaha waxay ku qarinayaan qayladaas iyo korkaas iyo isqaadqaadkaas waxay ku qarinayaan kalsooni darrada waaye ay ku qarinayaan oo way qeylena waxay attention u qeylinayan waxay leeyihiin ballan soo fiiriyo war quruxdeena arkooy war lacagteena arkooy war adduunyadeena arkooy war si u fiican ee kalsoonidii runta ahayd ma ahan oo waxaa waaye kalsooni darro yare dadka badankooda waa macnaha qaarkood inays ahaynaa laga yaabaa laakiinse cilmu nafsiga sida lagu tilmaamo waxay ku leeyihiin marka dadkaas kalsooni darro ay ku qarinayaan ma arkino boodboodkan kore tusaalan haddaa idinkugu soo qaatay biyaha ma arkino biyaha markay waddada ku socdaan oo kaleeto ay qeylinayaan shababababax leeyihiin biyahaas khatartooda ma arkino haddaa ku dhex dhacdid aad khatar uma ahanoo waxaa waaye kuma dhimanaysid uma biyo cabaysid ceelka biyihiisa laakiinse way degan yihiin waxba kama maqlaysid haddaa ku dhacdid oo dabaal aqoonin laakiinse waa ku dhiman kartaa marka deganaanta iyo ma arkin iyo xoogaa wax yariiska caadiga qofka asoo qeylinayn kalsooni way noqon kartaa qaylada iyo isqaadqaadka iyo quruxdan kor laga ka tustusayana kalsooni darro way noqon kartaa oo macnaha isqurxi marka lagu dhahayo marka arrintaas kama wado oo kibirka weligaa kibirgeesa kaa noqon marka insha allah waxaa ku dadaashaa isqurxinta inaysan kibir kaa noqon
kaa noqoto wax yar oo xoogaa macquul ahoo loo baahan yahay oo gurigaaga haddaa isku sharaxaysid oo maasha allah ah wiilkiina ama guriga adigana banaanka haddaa u labisatid oo ayadana inaadan ku boodboodin oo sanka aada taagin oo isku moodin adduunyada ninka ugu khatarsan marka aayadda siduu noo sheegana dhulkana ma kala jeexi kartid buurahan dhirkuma gaaraysid kibirkana ilaahay ma jeclo kibirka ha layska ilaaliyo marka midda shanaad waxaa waaye xuduud sameyso oo qodob muhiim ah waa qofku inuu xuduud sameyso anakana nagu adag xuduud sameyso xuduudda aad sameysanaysidna waxaa waaye kaftan aad u qalmin jirkaaga oo kaleeto si hadday wax ka yihiin ama waxyaabo kaleeto oo lagula kaftamaayo inaad qofka xuduud u dhigtid oo dhahdid walaashay ama walaalkay adoo mahadsan maasha allah qof fiicanaa tahay waa isku fiicanna waa isfahansannaha laakiinse arrintan waa dhibsanaa fadlan iga dhaaf inaad dhahdid waayo oo macnaha kaftanka xun iyo waxyaabihii sunnada ayada laftirkeedan ma ogono waxaa la yiri naanaysayaasha xunxun ha iskugu wicina marka qof kaleeto inaad ku dhibcabadsatid oo adigoo caynayo qofka kaleeto oo kaftan aad ka dhigtid wax fiican ma ahan marka haddii adiga aad tahay qofka waxaas lagu sameynayo haddaad sameynaysidna ha sameynaan ku dhihi lahaa haddii qofka lagu sameynayo aad tahan kalsoonidaada wax u dhibaysaa haddaa aragtid inaad dhibsanaysid waxaa dhahdaa walaalkay ama walaalow ama walaalay iga dhaaf macnaha arrintan waa dhibsana ama gees ula baxo qofka ama si gaar ah uu sheeg ama sidaa uu sheegaysa dabcan adaa taqaan laakiin si caqliyaysan inta uu sheegtid waxaa ku dhahdaa hadduu qof wax maqlaya yahay iga dhaaf hadduu kaa dhaaf waayeen waxay danta kugu jirtaa dadka kalsoonidaada wax u dhibaayo inaad ka fogaatid oo tartiibtaada gadaal uga guratid oo u aadid macnaha u guurtid dadkii kalsoonidaada kor u qaadayo kobcinayo niyadda kuu dhisayay oo maasha allah ku saacidayo marka qodobkaas waxaa waa qofka xuduud inuu sameysto cayda iyo kaftanka xun iyo waxyaabahaas uu iska diido u dhahmay meeshaan waaye fadlan kaftan maahan caydaana wax fiican ma ahan fadlan iga dhaaf waa ku ogahay inaad xumaan ugula dan lahayn laakiin saasay tahay wax lagu ciyaaro iyo wax lagu kaftamo maahan meeshaas marka qofku muhiim waaye iyo waxyaabo kale haddii jiraan xuduud inuu sameysto qofkan xuduudahaada haddaad adig u sheegin uusan ogeyn adoona xanaaq iyo waxyaabo kaleto ugu sheegin laakiinse qofka uurku baalla ma aha inaad u sheegtid waaye si yaroo degan ugu sheegtid walaalay ama walaalo waxaas waa dhibsanaa ama guri haddaa leedahan sidoo kaleeto labada qof oo isqaba ayakan inay xooga isku sheegaan ayagoo wax la waxeynin qofka kaleeto wax loo sheegaya isagan inuu xanaaqa maahan waa dabeecad xun tahay saasaa tahay wax yar waa inuu dhahba u isdifaaca ma ahan qofkan waxa dhibaaya iyo waxaa dhibayn asagaa go-aansanaya fadlan iga dhaaf hadduu ku dhaho inuu ka dhaafo waayo marka qodobka shanaad waxaa waaye xuduud sameyso qodobka lixaad ugu dambeeya u gudbaynaa oo ah waxaad aamintaa dadka kale inaysan kaa fiicnayn oo adigoo kale yihiin inay kula mid yihiin qof kasta soomaalida waxay dhihi jireen nin ka khatarsan ma jiro kulligeen maxaa la dhihi jiray 9 biloodaa ku dhalanay marka waxaa ogaataa ibni aadan leh inay wada nahay labadaas lugood iyo labadaas gacmoodaa leenahay tartiibteenaasaa dhulka u soconaa kulligeen 9 biloodaa ku wada dhalanay habeenkii waa la wada seexanaa subaxda suuligaa la wada aada wax qofkaan ma arkinoo wax uu ku dheer yahay ma jirto marka ha aaminin oo dadka kaleeto inay kaa khatarsan yihiin oo adiga aad daciif tahay ha aaminin kalsoonidaada hoos u dhigaysaa marka qof walbaba wuxuu ku fiican yahay maasha allah u qiro adi ahaan laakiinse qiimahaagiisan hoos u dhigin oo qofka caadi ah oo maasha allah adigana haddaad dadaashid oo wixii aad samaysid inaa awoodid aamin marka 6daas qodob waaye macnaha mar kale haddaa idiin soo dul maro oo idiin soo khulaasay waxaa waa kow inaad awooddo oo aad waxaa aamintaa inaad awooddo oo u qalanto oo aad samayn karta 2 waxaa waaye wax yar samee maalin kasta salaantiya tusaale u qaadan 3 waxaa waaye qof kale tacaawi 4 waxaa waaye iska taxadir xoogaa yar isqurx isnaasnaash make up marsi iyo barfuun isku jibin lagama wado kibirna lagama wado wiilasha haddaa ka hadalno 5 waxaa waaye xuduud sameyso oo kaftanka iyo caayad xun iska dhaaf qof dadka ku gol adigana ha caynin dadka adigana kaftanka iyo caayada xun inaa xuduud u samaysatid oo 5 ah 6 oo qodobka ugu dambeeyo ah asagana waxaad aamintaa dadka kaleeto adigoo kaleeto inay yihiin oo macnaha aysan kaa fiicnayn oo maasha allah meeshaas wixii loogu talagalay ee tahay ugu dambeynta marka waa 6daas qodob waxaa kaa codsanaa marka kanaalka haddaa ku cusub tahay inaa maantay waxaan haddaa ka heshan waa kasaa dabcan laagta waa noo saari kartaa haddaada ka helin insha allah muuqaalada ka dambeeya inaa ka heshidaa laga yaabaa adinkani intiina kaleeto marka sidaa marka hore idinkuu mahad celiyaba idinkaga mahad celinaa inaan soo saacidna soo booqateen dabcan mowduucyadan oo kaleeto haddaa xiiseyso ama dadka kaleeto ee anfici lahaayeen insha allah waxaa kaa codsanaa marka inaa usii gudbisid aniga kalsoonideeda kuma kobceyso laakiinse kanaalkaa ku koraayo kanaalka koritaankiisana waxaa waaye adiga inaad sii sheer gareysid uu ku kordhi karaa uu ku kobci karaa oo laagta u saartid
macnaha ani kalsoonideeda kuma naaqusayso kumana korayso, laakiin kanaalka noogu kobcayo insha allah fariinteenana dad badan sidaasay ku gaari doontaa. ugu dambeyntii marka hal duco iyo dardaaran. ducadeeni yareed oo ahayd marka waxaa idin rajeynaya ilaa ay kulantada dambeeto oo tan ku xig muuqaalka kan ku xig intaan u kulmeyno. waxaa idin rajeynaya nabad iyo naxariis, cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban. waxaana idin leeyahay ama u noolow ka rumeynta riyooyinkaaga ama la noolow cariiriga cabsidaada. ballanteen waa Raadsan Reeb.